قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رسولك إلهي وحول صلى الله عليه وسلم انتي نلوك جوك تسكن حريستا ينيغنا وحالي نيغنا حريساني يا عيركا ما سمينيسو معنى بوران ما سمينيسو مالكاد هايستو هدي أنا سيزغاك بحنينين معنى بوران ما سمينيسو هدي أنا قف مسكينة كو عاوينين اتمين nolosha maanta lagu jiro runtii way adag tahay waxa jira boqolaal fuqaraa oo inagu dhaxnool inaga waxa jira boqolaal masaakiina oo inagu dhaxnool macnaha inaga bulsho ahaan deegaan ahaanba qof kasta daba muslimna waxa saaran waajib ah in uu dadkani caawiyo. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. kulantu wacan oo wanaagsan waxaan rajaynayaa dhamaantiin wada caafimaad qabtaan aniguna soo kale waan caafimaad qaba maalin wanaagsan. maanta waxaan ka hadlayaa mowduuc ka duwan mowduucyadii hore ee YouTube-kiga ka taqaaneen ama kanalkayga ku taqaaneen. runtii waa mowduuc aan la qiirooday, runtii le xasaasiyad saa'ida leh, runtii qof kasta oo in un dareen iyo damqasho aadanimo leh si kasta u damqaya. horaantii usbuucan waxaan social media ku dhex arkay gabadh yar oo Soomaaliyeed oo baalashle ah, runtii nolosha ay ku jirtana ay tahay nolol adag. muuqaalkaasi markii koowaad daawaday wuxuu waxyeeleeyay inkastoo waqti hore la soo dhigay laakiin gadaalaan ka daawaday wuxuu waxyeeleeyay dareenkayga muuqaalkaasi. runtii waa muuqaal xanuun badan, wad arki doontaan halka maan hadda soo dhigi doonaa muuqaalka wad ila daawan doontaan. waa muuqaal xanuun badan. haddaba rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa. intiina dhulka joogta isku naxariista inagana cirka la inaga naxariisanaya. waxa jirta dad fuqara ah, waxa jirta dad masaakiin ah oo inagu dhaxnool inaga. haddii aad adigu maanta caawin weydo adigana beril Allahu a'lam inay kugu dhici karto taas oo kale iyo mid lamid ah. haddaba boqolaalka masaakiinta inagu dhaxnool waa inaan u damqanaa. muuqaalkan waxa soo duubay Wacays wiil dhaho wad ku mahadsan tahay si aad walaal u garab qabatay. hadduu muuqaalkaygu ku soo gaadho inkastoo rakiin ku soo gaadhi doona muuqaalkani dadka masaakiinta ee kelimada ka soo duubtay. noloshu runtii way adag tahay. base ahaan waqtiga hadda la joogana waxa jira boqolaal dadku laga yaabaa inay farxadda ka muujiyaan wajiyada, laakiin waxa jira dhibaatooyin badan oo dadka u qarsoon dadka aan dibadda u soo saari karin baa jira. waxa jira dad fuqaraa haddii adigu dheregsan tahay ama hooyo kuu shaqayso ama aabba kuu shaqeeyo ama walaalo kuu shaqeeyo, waxa jira boqolaal fuqaraa masaakiina waqtiyada qaar aanan helin guryaha cadeeda ay kaga gabadaan aanan jirin roobka dhaxanta iyo dabayshu intuba ay ku dhacayaan ayaa jira dunida tan. waliba Soomaali kula deegaana kula dhula kula magaala kula qabiila. haddaba inta xun ee qabiilka ku cararta inta xun ee qabiilka u sacabtumta haddii lacala qabiila waxa isku qabanaysaan inkastoo qabiilka Ilaahay u dhahay la tacaarafu baynakum inna akramakum indallahi atqaakum. maxaad wax ugu qaban weydeen kuwa liitay ugu dhex jira? maxaad wax ugu qaban weydeen haddii lacala qabiilku wax u tarayo? inaan ku fogaado ma doonayo mawduucaasi, waa mawduuc kale weeye. walaalaha muslimiinta ah si sharaf leh waxaan uga codsanayaa muuqaalkan qof kasta uu soo gaadho waxaad ku arki doontaan nambarka gabadhan yar iyo waalidiinteena. fariinta ay daraysana waad arki doontaan. waa gabadh yar oo ahaan 10 sano jirta. waa xilliga ilmaha la gacan qabto, waa xilliga ilmaha meel la gaadhsiiyo, waa xilliga ilmaha caqabadaha faraha badan laga ilaaliyo, waa xilliga ilmaha lala dareemo waxa uu doonayo rabitaankiisu waxa uu yahay. hadday noqoto tacliin, hadday noqoto diin in laga dhiso, waa xilliga ilmaha base-ka because guri kasta wuxuu ka dhismaa hoosta, ma jiro guri dusha laga bilaabo nolosha. waad fahmaysaa saan wax u wado. markaasi bal maxaad ku qiyaasaysaa ilmo 10 jira aabihii uu ka dhintay, hooyadii ay la rafaadsan tahay, waliba hooyadii qaliin ay ku jirto, waliba aanay u shaqo tagi karin waalidka ubadkaasi ay yaryar ay haysato. sidoo arki kartaa qisadan waa qisa ka dhacday magaalada Boorama horaantii usbuucan lagu soo bandhigay social media-ka. inkastoo ka soo dahay qisadan way la daawan doontaan insha Allah, ila arki doontaan. magaalada Boorama waxa ku nool ganacsadayaal baa ku nool, waxa ku nool dad hanti haysta ku nool, waxa ku nool dad maal qabeena ku nool. hal qof iska daa 100 qof maaha, hal qof oo kaliya ayaa kafaala qaadi kara gabadha yar nolosheeda intuu Ilaahay tala saarto. laga yaabaa 4 person iyo 5 person iyo 5 qof iyo 6 qof waxa weey wax la qoodin karo. inkastoo Ilaahayna la yarsuqo man yashaa biqayr xisaab qoodinta uu Ilaahay hayo. hal qof baa nolosheeda kaafi kara oo awlaadiisa oo kale ka dhigta maadaama tahay gabadh yar oo agoona. runtii waraysigani waa waraysi qiiro badan. markii aan daawaday runtii waraysigan
wuxuu yeeshay runtii waraysigani qiiraf saa'id u fara badan buu igu dhaliyay insha Allah waxaan rajaynayaa walaalaha muxsiniinta ah meel kasta dunida ka joogaan inay gabadha yar caawiyaan waxaan rajaynayaa insha Allah walaalaha muxsiniinta muuqaalkan uu soo gaadhay inay sii faafin doonaan si walaalo kale muslimiin fara badan ay u arkaan in Ilaahay ka rajaynaya soo kale waxaan rajaynayaa in wax loo qabto oo ummadda muslimiinta daafaha caalamka ku nool dhamaantood ee Soomaaliyeed ee afka Soomaaliyeed ku aftirsata dhamaantan uu muuqaalkani uu gaadho haddii aad muuqaalkan daawato sii share garee si aad walaasha ama walaalkaaga dhibaataysan wax ugu qabato kadib loo caawiyo qofka muxsinka ee wax haysta uu wax gaarsiiyo xitaa $1 $10 $5 haddii aad ku caawiso way isku ururaysaa hadhowna waxay noqonaysaa wax buuran oo wax loogu qaban karo waxay noqonaysaa wax buuran oo caqabadaha haysta lagaga saari karo ka soo qaad ilmahaaga oo 10 sano jira baalash u baxaya ama kaba dhalaalis waliba iyadoo dumara maaha wiil raga maahan dumara waliba magaalada tagaya waliba suuqa inta laga soo dhex maraya bacadka kulaylaha roobka rafaadka dhacaya xilligu soo laabtana waxa weeye hawshii kale guriga ay u taalo waa ilmo 10 jir waxay taas sameynaya really waa wax laga xumaado dadweynaha gobolka Awdal ku nool dad sharaf la ku nool runtii oo akhlaaq leh wax bartay tacliin leh waxaan ka rajaynayaa iyagana marka Soomaalida kale laga yimaado insha Allah maadaama deegaan ahaan kula nooshahay ilmaha yari in si gaar ah ilmaha yar ay u caawiyaan madaxda dhaqameedka madaxda cuqaasha ardayda qof kasta wax kasta ku caawin karo familiga inuu ku caawiyo in kasta jiraan boqolaal family oo dhiban oo danyara oo waxba aan qabsan karin in kasta jiraan haddana familiyada waa familiyada soo muuqda social media waliba qisooyinkooda ay leeyihiin naxdinta xasaasiyada haddii maanta u naxariisan weydana bari Allahu a'lam halkaad ku dambeyn doonto haddaad maanta xoolo haysato bari Allahu a'lam wa tilka nidaawiluha al-ayyaamu bayna an-naas bilahay dhahay ayaamuhu dadka ay dhex wareegayaan raynta qof ama qoysi waa mid kamid ah waxyaabaha ugu adag ee ibnu aadamku qabto iyadoo ay taasi jirto ayaa haddana waxaa jira dhalinyaro yar oo qoysaskooda ku qoodiyo shaqooyinka adag kuwa dadka kale Siman Cabdi waa gabar 10 jir oo ku nool magaalada Boorama waxayna ku shaqaysaa xirfadda loo yaqaan baalashka ama caseeyaha taasi oo ugu shaqaysa qoyskeeda oo danyar oo ku nool magaalada Boorama isla markaana ka kooban 5 qof waxayna ay sheegtay in shaqadan caseeyaha ay ku weyday dhammaanba noloshii dhalinyaranimo iyo sidoo kale waxbarashadeedii Siman oo maanta kula kulmay mid kamid ah goobaha ay ku shaqayso subaxii ayaa ka waraystay nolosheeda iyo waxa waqti xaadirkan ku kalifay in ay ku shaqayso xirfadan caseeyaha waxay ku kalifay xabdayga iska danyar hooyaday waa mul aabahayna uu naga dhintay adeer baan isna adeerkayna waxba nooma qabto markuu shaqeeyo 10,000 ama 5,000 buu noo keenaa saas ay ugu kaliftay dantaanay tiri hooyaday baana u shaqeeyaa oo xanuunsan adigu ma leedahay dadka waaweyn oo kala xaafadda u shaqeeya may waa laba yaryar iyo halkii maka dhashay beesinta ana ugu weyn meesha markii ana ugu weyn meesha in maalintii lacag intee leeg baad ka shaqaysaa 30,000 ama 40,000 ama meelaha baan ka shaqeeyaa xageedkiisa lacagta aad shaqayso hooyaday baan u geeyaa dhigta adu wax ma dhigataa ma dhigto maxaan u dhigan bal waxaan iskuul ku dhigtaan haysta lacag cid naga bixisa ma haysto iskuulka agoominta lege hooyadeena way ka soo kaxayso qof wax u qabta ma haysato iskuulka agoominta markaa geysay dana way ka soo kaxaysay saasaan baalishka u sameeyaa muddo intee leeg baad imika baalashkan waxaad ku jirtaa shaqadan baalashka wallaahi aduu ilaa iyo 6 bilood baan ku jiraa bishii 7 galay imika 10 jir baa xageed wax ka baalashaysaa kolba meeradan tagaa meeradan fadhiisan jiray meeradina waa lay diiday inaan fadhiisto naagsi laad baa igu tiri orodoo dibadda ka shaqee dibadda markaan tagan qofkii gudaha iga yeedhaya xubniisa ha u gelin beegoona saawicintaynayaan markaad kabaha baalashayso imise lacagaad qof ku shilin marka labada beer yihiin 2,000 wax dhibaatooyin oo ka hor yimiday ma jiraan inta aad baalashka ku jirto may wallahi waxba dhibaatayga ma hor imani waxa jira dhalinyaro badan oo baalashkiyo waxaan sameeyaa kuwaasi ma ku dhibaateeyaan may ma dhibaateeyaan naaga way jiraan ay baalisheeya kuwa baan la socseega subaxii imisada timaadaa magaalada oo shaqada bilowda inteen leeg baad shaqaysaa waxaan shaqeeyaa 7 subaxnimo ilaa iyo 11 ayaan joogaa
markay kowda gaadhana waan hooyadaa. Markaan shaqeeyo aroortii duurka marka leedaamo waan qado taga xafdada waan ka soo qadayaa galabtaan middaa habeenka 9 biiraana waan iska hooyadaa. ugu dambeyntii maxaad bulshada Boorama iyo guud ahaan Soomaalida aad ugu baaqay? bulshada waxaan ugu baaqayaa inay soo caawiyaan saan baalishka iskaga daayo oo wax u barto. jeceshahay markaa inaad wax barato haddii lagu soo caawiyo? haa waan jecelahay si fiican baan jecel aad madarsadii iskuulba waan dhigan jiray haddana waan sii garanayaa quraanka inaan haddana barto oo saa'id qalan jabiyo oo caawiyaan saan baalishka iskaga daayo oo wax u barto. Siman waa gabar 10 jir oo ku nool magaalada Boorama isla markaana ku shaqaysatay xirfadda loo yaqaan caseeyaha taas oo ay ku quudiso qoyskooda oo dan yar oo ku nool magaalada Boorama kadib markii dhawaan aan warbixin ka duubnay Siman ayaa maantana waxaan booqanay hoyga gudaha magaalada Boorama ka degan yihiin qoyska Siman oo ah qoys dan yar oo ku nool magaalada Boorama waxaana maanta la kulanay hooyada dhashay Siman oo lagu magacaabo Ruqiya Cabdi Axmed waxaana ka wareysanay nolosha qoyskooda waxayna noo sheegtay anoo magacaygu yahay Ruqiya Cabdi Axmed Siman hooyadeedna maxaa la yiraahdaa waxaan haystaa 4 ciyaala meeshan aan deganahayna anigu malihi waqfi baan ku deganahay iyo buulkan ba laftigiisa isaga laftigiisuna waa waqfi oo anigu malihi caruurtana waxaan haystaa 4 ciyaala 4 ciyaalana waan jeexanayo uma shaqaysan karee inanta yar baa iigu weyn inanta yar iigu weynna maxaa la yiraahdaa baalashkaasay qaadato. insha Allah salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan rajaynayaa insha Allah inaad klibkan sii share garayso si asxaab kale u gaadho iyo walaalo muxsiniina. dhammaantiin waa mahadsantiin daawashada muuqaalkan.